Assalaamu calaykum asxaabteeda YouTube kusoo dhawaada janaalkeena Hani Jaafuli. Haddii uu kugu cusub yahay janaalka, subscribe noo dheh, like dheh, share dheh, comment ka bixi insha Allah. Haddii aad hore noola joogtayna aad u mahadsan tahay, like iyo comment iyo share ka noogu dadaal. Maanta waxaan waxay idin wadaa budin cusub oo laga sameynayo jelly iyo maxaan lahaay buskut iyo maxlabiyad. insha Allah waad ka heli doontaan, aad ay u macaan badan yahay. Waxaan rajeynayaa inaad tijaabi doontaan oo isku dayi doontaan, in badan aad ka faa'iideysan doontaan xilliyada martiqaadka iyo waxyaabahaas oo kale aad ay idin anfacayaan, ama casiriyaha galabtii oo kale ilmaha ugu tuuri karta aad u jecel yihiin. Meeshaan maanta waxaan ku haysanaa buskud, aan ku haysanaa buskudkaas waa buskud yar oo maxaa la dhahay xabadii 2,000 joogto haddii aad Soomaaliya joogto. Sidoo kale jelly aan haysanaa, maxlabiyadaas aan haysanaa. inta waxaa ku haysanaa caano macaankan anoo sameynayo janaalkayga wuu ku jiraa, dib ugu laabo kasoo fiirso, wuu ku anfacaa insha Allah. Heel iyo caano macaan aan meeshaas ku haystaa. inta waxaa ku haystaa waa caano booro 1 litir iyo aan dhahee nus litir caano booro waaye. waa haddii cabirkaas aad haysanin dhib ma laha, galaas buuxo iyo bar ayaad maxay ahayd ku sameysanaysaa. waa caano 1 galaas, galaaska caadiga oo cabitaanka lagu cabo Soomaaliya iyo barkiis oo maxaa la dhahay caanahaasi ayaad meesha kusoo shubanaysaa insha Allah. marka buskudkan aan sameysanayna, buskudkan dukaan walba wuu yaalaa, ay buskud aad isticmaali kartaa marka laga reebo buskudada yacni dhexda uga jiro maxay ahayd waxyaabaha yararka macaan dhexda uga jiraan. marka laga reebo ay buskud shaahi yaalaa buskudkan, ay buskudkan aad isticmaali kartaa, dukaan walbana waa ka helaysaa insha Allah. bacdaas aan kusoo shubana haddii Ilaahay dhaho. bacda markaa kusoo shubto waa budeyna insha Allah, waa jijibina. haddaa qalaado haysatid waa isticmaali kartaa, laakiin ana qalaado buskudka burburin karta ma haysti, sidaas daraadeed bacdaas aan u isticmaala, aan ku shubtay. bacdan xataa waa bacda saliida lagu shubo jalaatooyinka waxyaabahaas lagu xiro, fridge wax lagu keydsado. haddii ayada aadan haysan bac madow waa isticmaali kartaa, bacda qafiifta isticmaali kartaa. yacni muhiim maaha wax walba oo yacni wax ku xiri kara ma laha. haddaad rabtid inaad wax sameysid, wax haddaa weysid badalkiisa ayaa sameysan kartaa insha Allah. marka waxaa sameynaa muskiiladaas u qaato, waa soo jejebina insha Allah. baaquli ay kusoo shuba haddii Ilaahay dhaho. meeshaan waxaan ku haystaa marka blue band aan ku haystaa. blue band ka haddaa timi idin tusin ama butter aad subaga isticmaali kartaa, saliid cadeey isticmaali kartaa. saliid cadeeyda tan oo sunflower ka oo yacni jilicsan isticmaali kartaa. ana hadda wuu igu yaraay, wax yar u ahaa, saliida ku badsaday insha Allah. waa ku shubtay, waa isdhex gelinaa, asidan waa isdhex qaadsiinaa haddii Ilaahay dhaho. marka waa kaasaa kana marka asidan isdhex qaadsiiya. ani saxankaana haystaa, ani saxan waxaa ku isticmaali kartaa maxaa la dhahay saxamada doolshada lagu sameeyo oo kaleeto waa isticmaali kartaa. muhiim ah saxan dhala inaa haysatid. marka waa kaasaa meesha ku shubana insha Allah. marka buskudkan wuxuu rabaa inaa la adkeeyo oo yacni meesha lagu simo lagu dhajiyo haddii Ilaahay dhaho. fadlan janaalka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar, na dhiirigeli. waa ku cusubnaha meesha insha Allah, si muuqaalo badan aan usoo gelino. like dheh, share dheh, asxaabtaada usii gudbi. waa hubaal inaa ka faa'iideysid maxay ahaday cunooyinka aan soo geliyo haddii Ilaahay dhaho. marka waxaa qaandadii way igu filnaaweyse, waxaa sameeyey marka galaaskaas haysto oo nadiif ah meesha yaalay, asagaasaa raba inuu ku simo insha Allah. si fiican inuu u dhagaal raba, because markii maxlabiyada lagu shubo inuu dhex qaada lama rabo. talaajadaa gelina qaybta kore weliba, laanna waxaan rabaa inta maxay ahayd maxlabiyada aan sameynayo inuu i adkaado, si degdeg igu adkaado haddii Ilaahay dhaho. waxaa ku haystaa galaasi barkii caanaha ahaa, waxaa ku daray 4 qaando oo waraanga ah. 4tan qaando oo waraangada iyo caanaha marka isku daro gadaal waxaan ka ogaaday, yacni waxaan dareemay inay igu adag yihiin, oo adeeg intaas leeg xajmigaas aan rabin. saas daraadeed waxaan ku daray galaas kale oo soo dhow, yacni haafna ka badan aanan buuxin aan ku daray. marka adiga qofka sameynayo asagay ku xiran tahay inuu yacni uu fiiriyo waxa uu isticmaalayo. yacni biyaha kaaga badan karo, way kaaga yaraa karaan, laakiin intay kaaga badan lahaayeen mar walba waxaa fiican inay kaaga yaraadaan. wax markii ay kaaga yaraadaan gadaal waa ka badsan kartaa, laakiin marka ay yacni kugu bataan dhibkeeday leedahay. soo mar walba inaad taxadirtid aan rajeynaa insha Allah. tan kaloo idin sheegaa waxaa waaye
kastarkan ama maxlabiyadaneti qaandada ama walaaqa ha ka deynin. Shabaqan haddii aad haysan muhiim ma ah, qaanda isticmaali kartaa. Qaandada inaad ka dhaafin ilaa intii iska soo qabsanayo uu kasoo karkaraa insha Allah. Caana macaanka ku dara hadda sida u jeediin. Marka ilaa dabka si fiican ugu helo waa ina maxay ahaydey walaaqitaanka aadan ka deynin insha Allah. maasha Allah muuqaalka badanaa ma idinka jajarin marka si ay u faa'iidaan waa kaas hadda wuu soo adkaaday marka alxamdulillah wuu bislaaday marka waxaa ilaabay oo idin tusinin heela ku daray kastarka heelka caraf fiican uu siinaa insha Allah oo aad u caraf badan u noqonaa. waxaa soo qaadana wiilkaas ku soo shubtay wiilka markaa ku soo shubtay meelaa dhigtay yacni wuu ii qaboobay hore kama isticmaalo asoo asaa kul yacni markaan ka bacdi qadaa dabkii saarneed qadadii aa kariyay ilmaha siiyay ka bacdi maxay ahaydey kastarka soo qaadana ma fahanteen waa kaas waxyaabaha iska reeb waa heelkii mirihiisa iska reeb sidiisa kale softii ku soo baxa maasha Allah aad u qurux badan maasha Allah. marka waxa buskudkeena soo qaadana buskudkeena dusha uga shubanayna hadii ilaa dhow si tartiib ah uga shubanaysaa miska waalinaysid kastarkeena meela soo dhiganay talaadadan soo gashtay marka meesha waxaa ku haysanaa jeeligaaneti maxaa la jeeli waxaa lagu gadaa supermarketyada ka helaysaa xabadii waa 75 gram laba xaba aan hadda isticmaalay marka xabadii 75 gram waxaa loogu talagalay laba bakeeri oo biyo ah bakeeri biyo ah oo kulul iyo bakeeri biyo ah oo qabow bakeeri kulul ku garaacaysa yacni ku qasaysaa ka bacdi waxaa ku darsanaysaa bakeeriga qabooba marka inta ani waxaan ku shubanayaa laba bakeeri oo kulul hadda ku shubtay labadii baakad oo 750 gram isku naqanayaan oo maxay ahayd jeeliga ama gelatin ahaana waa ku darsaday gelatin waa la dhahaa bahalkan marka afartaas bakeeri oo naqana insha Allah hadda xajmi inta ka yar samaysanaysid oo buskudka soo dhimaysid kastarkan soo dhimaysid kan hal xab waa ka dhigan kartaa yacni inta aad u baahan tahay ku xiran tahay samaysanaysid ama caailadooda intay ka kooban tahay qasam ma intaan oo dhan inaad samaysid oo aad u baahneen laakiin haddii aad rabto talaajada iska gashan asiga ma ka halaabayo waa isticmaali kartaa 2 maalmood marka soo walaaqana wax yar meel dhigana asina talaajada wax yar soo geliyay si uu yacni iiga dhaxgelin maxlabiyada uu soo soconaa asiga laakiin ma adkaanin laakiin talaajada ka soo bixiyay dareemaysaa wax yar sarka ku hara u jeeda Soomaa oo jijibina talaajada waaye oo jibina oo ku shubanaa nadiif ah waa kaas saasa u jeedina quruxda badan oo ku soo baxay marka waxaa rabaa kareem iyo buskud kor ina ugu qurxino kareemkii aan soo diyaarsanayna insha Allah kareemkaas kaligiisa video kaga soo sameeyna sida loo diyaariyo inta biyo u baahan yahay qaabka loo diyaarinayo insha Allah mar aan tooto sameeynayo idin soo gelina Ilaahay dhaho marka waa kaas galaaskaas bacdaas ku ritay wiilka yaro sharaxaada oo tooto lagu sharaxana bacda uu ku soo ritay insha Allah waa kaas koobina u yeela koobintas markii aan dhameeyno insha Allah buskud ayaan kor uga sharaxayaa maadaama qaybta ugu hooseysa buskud yahay sharaxaad kale toodna uma baahno oo zaid intaas ka badan marka buskudkaas dush ka saar Ilaahay dhaho
buskudkii aan hoos kusoo sameeyey wuu iga dhamaaday marka qasab maaha inaan dhaho buskudka asiga naftirkiisa raadina buskudkaana guriga yaalo wax yar ah asagaa qeyb xataa hal xaba usoo saaray soo majeeda qeybta hore hal xaba usoo saaray kabacdi wax yar waa igu yaraa waa kala jabsada marka ileen wax tasyiin bisaa ka rabnaa ma ogtahay anaga qurxin bisaa ka rabnaa marka waa kaasay waa jaranaynaa insha allah suu kusoo baxay waa isla arkaynaa subxaan allah qofkii dhadhamiyey oo keliya ayaa ka sheekeyn kara macaankiisa wallaahi ila tijaabiyo soo sameeya bal insha allah wixii sida aad kala soo kulmantaana commentiga hoos noogu soo qor hadda aad kasoo heshay haddii kale insha allah waaba hubaa waa kasoo heli doontaan haddaad janaalkeena ku cusub tahay fadlan share noo dheh like commenti subscribe insha allah intaan inka badan muuqaalo ah ka faa'iidaan waa idin soo gelin doona haddii ilaahay dhaho waa kaasaa suu kusoo baxaya cajiib ah fiiri yani wax kala daadaadanayo ama kala maxaheedii jilacsan oo kala soconaya ma aha sidii loogu talagalo lagu cunaa maasha allah wuu kusoo baxaa halkaasaa wixii dhadhamisii cuno ehne hayna agteeda insha allah caafimaad iyo barwaaqo aan ku cuno ilaahna siiyo alxamdulilah ilaa maadiskale waa kaas aada u macaan yahay alxamdulilah ilaa nimcadaana siisanoo ziyaada intaa haysana sii ilaha mahadiskale alxamdulilah rabbilcaalamiin waa kaasahay insha allah soo tijaabiya aad iyo aad umahadsantihiin mar kale intaa muuqaal kale ku kulmi doono waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu